Asalaamu calaykum. Ku soo dhawaada muuqaalkeena cusub iyo talaado kasta oo aan soo dhigi doono macluumaad guud iyo barnaamijyo taxane ah oo xiiso badan leh oo aan soo wado. Fadlan ha moogaani inaad ku soo biidho channelkeena idinkoo subscribe gareynaya insha Allah. Ma ogtahay inay diyaaraddu tahay gaadiidka ugu xawaaraha sarreeya marka loo eego masaafooyinka fogfog? Mase ogtahay in markii diyaarad soo degto mid kale hawada sare u duusho? Haddaba weligaa ma isweydiisay diyaaradaha caadiga ah kuwo ka waaweyn ma jiraan? Waana kuwee diyaaradaha ugu waaweyn adduunka? Haddaba muuqaalkeena maantay waxaan kusoo bandhigayaa 10 diyaaradood ee ugu waaweyn adduunka oo isugu jira diyaarado xamuul iyo kuwo militari ama ciidanba. Nambarkeena tobnaad waxa uu ka bilaabmayaa Lockheed Martin C-130J Super Hercules. Diyaaradan oo lagu sameeyay waddanka USA ama Mareykanka waxay leedahay 4 matoor, dhererkooduna waa 400 oo mitir, waa ku dhawaad kiiloomitir barkiis. Baalasheeda ama garbaheeduna waa 40 mitir. Waxaana inta badan diyaaradan loo isticmaalaa arrimaha ciidanka, waxaana loo isticmaalaa arrimaha emergency-ga ama degdega ah sida dababka. Waxayna qaadi kartaa ilaa 19 tan culays dhan. Number 9 ama nambarka 9aad Airbus A400M Atlas. Waxa weeye dhererka diyaaradan 42 mitir. Waxayna qaadi kartaa 130 tan. Waxaana sidoo kale loo naqshadeeyay in ciidamada qaado, iyadoo sidoo kale loogu talagalay in ciidamada dalaayadaha ama barshuudka ku duula ay isticmaali karaan. Nambarka 8aad Airbus Baseline Supergate. Diyaaradan waxa weeyaan dhererkeedu 44 mitir, dhererka garbaheedu ama baalasheeduna waxa weeyaan 48 mitir. Waxayna awood u leedahay inay qaado culays dhan 27 tan. Waxaana loogu talagalay inay qaado qalabka raashinka ama qalabka saaruqyada iyo gantaalada, sidoo kalena qaado diyaaradaha dagaalka. Nambarka 7aad Boeing C-17 Globemaster. Diyaaradan shaqadeeda koowaad waa u adeegidda ciidamada Mareykanka. Waxa uu dhererkeedu dhan yahay 53 mitir. Baalasheeduna waa 52 mitir. Waxaana loogu talagalay inay ciidamada ugu adeegto. Waxayna awood u leedahay inay hawada sare albaabada ku furato si ciidamadu uga soo daataan ama ciidamada loo yaqaano ciidamada dalaayadaha ku booda. Waxayna qaadi kartaa culays dhan 777 tan. Nambarka 6aad Airbus 600ST Beluga. Waxaa naqshadeeyay design-ka diyaaradan shirkadda Airbus. Waxayna shirkaddu ugu talagashay inay diyaaraddu u qaado qalabka diyaaradaha lagu sameynayo ee xarumaha wadamada kale ay ku leeyihiin. Waxayna awood u leedahay inay qaado 74 tan. Wuxuuna dhererkeedu dhan yahay 56 mitir. Jooggeeduna waa 17 mitir. Nambarkeena 5aad waxaa ku jira Antonov AN-22 Antel. Waa diyaarad lagu naqshadeeyay 4 matoor, waana diyaarad ciidan. Waxaana loogu talagalay inay qaado gantaalada darandooriga u dhaca. Waxaana la soo saaray diyaaradan sanadii 1966. Waxaana ilaa maanta la sameeyay 68 nooc oo nooceeda oo kale ah. Nambarka 4aad Boeing 747 Dreamlifter. Sida aad magaca ka wada aragtaan, waxaa diyaaradan la dhahaa Riyaxambaare ama Dreamlifter oo ay shirkadda Boeing ugu talagashay inay qaado agabka diyaaradaha ama spare parts-ka diyaaradaha lagu sameeyo, geysana wadamada shirkaddu ku naqshadayso diyaaradaha. Waxa weeyaan dhererka diyaaradan 71 mitir. Waxa baalasheedu dhan yihiin dherer 64 mitir ah. Waxayna diyaaradan awood u leedahay inay qaado 113 tan. Lockheed C-5 Galaxy. Waxaa diyaaradan iska leh ciidamada cirka ee dowladda Mareykanka. Waxaana loogu talagalay inay qaado agabka ciidamada cirka. Waxaa dhererka diyaaradan uu gaarayaa ilaa 75 mitir. Baalasheeduna waa ilaa 68 mitir. Waxayna awood u leedahay inay qaado 12 ka mid ah gaadiidka dagaalka khaaska ah ee loo yaqaano Hammarka iyo diyaaradaha helicopter-ka, iyadoo sidoo kale qaadi karta taangiyada dagaalka, helicopter-da dagaalka. Waxaana loo naqshadeeyay inay qaadi karto agab kasta oo ciidanku u baahan yahay, iyadoo sidoo kalena hawada sare shidaalka ku heli karto. Nambarkeena 2aad Antonov AN-124 Ruslan. Waxaa diyaaradan si khaas ah u isticmaala ciidamada cirka dowladda Ruushka. waxaana diyaaradan la naqshadeeyay sanadii 1982 waxaana sameeyay dawladii Soviyetka. Waxay awood u leedahay inay qaado agabka ciidamada goob iyo meel kasta oo lagu baahdo, waxayna qaadi kartaa 120 tan. Sanadii 1987 May ayay waxay jartay masaafo dhan 20,151 kilomitir iyadoo xambaarsan xamuul dhan 455,000 oo kilogram iyadoo aan wax shidaal ah ama hakad kale gelin.
waxayna ku qaadatay inay masaafadaas jarto 25 saacadood iyo 30 daqiiqo iyadoo halkaas rikoodh cusub ku dhigtay. Antonovan 225 Maria diyaaradan waxa weeyaan diyaarad xamuul ciidan waxayna ku jirtaa kaalinta koowaad diyaaradaha ugu dheer ama ugu waaweyn uguna culayska badan adduunka. Culayskeeduna waxa uu dhan yahay 600,000 oo kilogram waxayna qaadi kartaa 640,000 oo kilogram waxayna ku shaqaysaa 6 injin ama matoor. waxaana qorshaheeda koowaad ee loogu talagalay ahaa inay qaado diyaaradii Buran ee Russia, laakiin waxay awood sidoo kale u leedahay inay qaado diyaaradaha waaweyn maadaama ay leedahay space ku filan oo ay wax ku qaadi karto. waxay sidoo kale leedahay 16 taayir oo dhinac kasta kaga yaala. hadda waxaa jira hal noocan ah waxayna awood u leedahay inay qaado 10 taangiyaasha dagaalka iyo diyaaradaha dagaalka hal mar gudaheed. daawaday waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena. haddaad ku qanacday muuqaalkan waxaan ka codsanayaa inaad la wadaagto asxaabtaada sidoo kalena kusoo bido channelka.